بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكني وتيفيجا عالمية يونيفرسال استوديو ويسا فاقدات أوكي على باريجا مجال لندن برنامج كني فاقدات عيارها أو حمرتين نوجوه بدون حجينك حريرك الصوماليات كوبدا كوليجا إنجنير عبد القادر الجدي يو مستر أحمد عبد الله تيجانا أو بعض إسبورتيجا مجال لندن كسر هذا مدنيا. أدونا. داوديال sida aad ku aragteen furitaanka qaaska ah ee barnaamijka wadanka Tanzania waxa ka dhacay ciyaarihii Zone 5 ee kubadda kolayga oo sanadkan ay u matalayeen wadanka Soomaaliya ciyaaryahanno laga kala keenay wadamada Mareykanka, Canada, Europe iyo Soomaaliya. Marka barnaamijkan waxaan kaga sheekayn doonaa intiisa badan ciyaarahan ka dhacay Tanzania ee la soo gabagabeeyay hadda qaabka ay u dhaceen iyo qaabka ay Soomaaliya u qayb gashay. Jargedi mar labaad ku soo dhaw faaqadaada ciyaaraha runtii waxaan leeyahay hambalyo adigoo maanta wakiil uga ah dhinaca basketka kubadda kolayga ee Soomaaliya bal waxa iga sheeg qaabka oo loo ciyaaro iyo sida loo qayb galo ciyaarahan Zone 5 ka dhacay wadanka Tanzania. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zola wa salaamay adiga iyo Tigano iyo martida sharafta leh in fiirsaneedo adduunka FIBA ayaa qaabilsan kubadda kolayga adduunka. Afrikana waxa qaabilsan AFABA qaabilsan. marka AFABA waxay sameeyay Afrika maadaama ay yihiin konton wada yihiin zones loo kala qaybshay annaka Britain Zone 5 aan nahay Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 iyo Zone 6 jiro marka annaka waxaan nahay Zone 5 aan nahay wadamada dhaco East Central Africa oo kamid ah ilaa laga soo bilaabo Suudaan ilaa Soomaaliya ilaa Rwanda waxaan isku nahay Zone 5 aan nahay inta badan Zone 5 ciyaaraha la qabtaa ragalan sanadkii dhaco waxaa kamid ah ciyaaraha xulalka qaranka iyo ciyaaraha kooxaha horyaalada sanadkan 2018 ka ciyaarahan ka qayb galnay national team kan ka qayb galnay waa ciyaaraha national team ka ee Zone 5 ee labada sano mar la qabtaan sanad taasan ka qayb galnay. Okay burburkii ka hor wadanka Soomaaliya hadii aan ka badino Kenya iyo Rwanda iyo Burundi xogaa waxa ma aan sababtoo ah Soomaaliya number 2 ama number 3 ama number 4 ay gali jireen laakiin hadda dadka Soomaalida guulahan ay soo hoyeen wiilasha qaranka Soomaaliya waxay arkaan wax aad u weyn isbedelkaas ku yimid wallahi waa macno weyn waayo maadaama muddo dalka Soomaaliya dagaal sokeeye ka dhacay inta badan aan tagi jirin ciyaaraha noocan tagi jirin sanadkan waxay muujinaysaa dalka Soomaaliya wali ku jiro saxada sportska iyo awoodii kubadda kolayga Soomaaliyeed oo sanadkan meesha ka muuqatay inta badan wadamada Central Africa iyo East Central Africa Soomaaliya door weyn ku lahayd jirnay doorkii hadda soo laabtano ana maadaama la dad quality leh hoggaan fiican ciyaartooy fiican tababaro fiican waxay muujinaysaa sharaftii karaamadii Soomaaliyeed hadda dib u soo laabatay saas ay yeelaysa okay tigana ku soo dhaw dadkaan aqoonin wiilashan ku socday calanka Soomaaliya meelaha kala yimaadeen bal waxay nooga sheeg
cabdinaasir waa mahadsan tahay injineerkana waa salaamaya waxaan ku faraxsanahay inaan maanta guushii iyo wanaagii ay sameeyeen xulka qaranka Soomaaliyeed in maanta halka u joogno wiilashani waa dhalinyaro aad u da'yar intooda badanna waxay ka yimaadeen labada wadan aad looga tixgeliyo ciyaaraha basketballka waxay afar kamid ah dhalinyaradaas waxay ka yimaadeen Mareykanka afar kamidna waxay ka yimaadeen Canada Australia iyo Holland iyo dhalinyaradii kale Soomaaliya ka timi laakiin dhalinyaradii ku soo barbaartay oo intay qurbaha joogeen xoogooda saaray inay jaamacadaha u ciyaaraan collegeada u ciyaaraan oo maaragtay aad loo diyaariyay dhalinyaradani marka aad maaragtay waxyaabaha ay meesha ka muujiyeen waxay tusaale u noqonaysaa in magacii aynu ku lahaan jirnay Africa oo maanta dib u soo noolaaday la arkay maaragtay dadkii hore oo aqoonta u lahaa ama magaca ku lahaana aad maanta ka dhex arkaysid inay maaragtay ku xeeran yihiin oo si voluntary ay maaragtay uga qayb qaadanayaan maaragtay ciyaaraha okay saan sheegay Kenya waa ka badinay Burundi waa ka badinay waxa dirqi ku fakaday Rwanda dii laga badin lahaa Masr ayaa faanka loo tagi lahaa ilaahba wixii dhici lahaa markaas kadib laakiin ciyaaraha ay muujiyeen wiilasha Soomaaliyeed ma ahan kaliya Soomaalida dadkii xataa barigay bartamaha Afrika ee ka soo qayb galay ciyaarahan ka dhacay garoonka Dar es Salaam runtii aad ayaa loogu riyaaqay tifoosiyaal aad u fara badan waa yimaadeen garoonka bal arintaas ay u aragtaa tifoosiyaasha Soomaaliyeed ee ku sugnaa Tanzania wallahi waxa furmay waji cusub nin daawanaya ciyaartii ugu dambeysay fadhiyay oo aan xiriir la sameeyay waxyaabuhu ka sheekeynay ama aynu kulligeen ba ognahay ciyaar kasto ay ciyaarayeen iyaga hogaanka hayay waxay ku tusaysaa marka waxaan xasuustaa maalintii aynu ka lahaynay injineerka inala socdeen aynu Olympiga soo dhaweyneen sawaxdiisan u ka lahaynay qeyradeen ugu jirtay mid lamida ayaa dad waxay u heleen Jaanis inay garoonka tagaan calankii Soomaaliya qaataan iyagoo Soomaali metelaya iyagoo dareensan magaceeni iyo maaragtay qiimaha aynu ku lahayn sportiga inuu dib soo noqday marka aad bay dadku Afrika wax kale laga maad hadal hay hadda waxyaabihii wiilasha yaryar ee Soomaalida ay sameeyeen ayaa aad looga hadal hay waa gartay injineer bal waxay ga sheeg doorka ay ka qaateen macallimiinta iyo maamulka la socday sida macallin Baarajab Dr. Saciid Faarax Ducaale legend Ahmed Muuse oo ka soo safray wadanka Germany waxa kale oo joogay Bashir Fox oo ka yimid wadanka Qatar ka yimid waxa joogay Maxamed Xaaji iyo macallimiin kale bal doorka ay ka qaateen in dhalinyarada heerkan ay gaareen waxay nooga sheeg waayo waxyaraan ku sharaxo xiriirka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay yarli banaan qorsanadeed u leeyahay qorshaha sanadka waxaa kamid ah in macallimiinta Soomaaliyeed tababar la siiyo garsoorayaasha tababar la siiyo ciyaaro gobolada la qabto waxaa kamid ah in consultation xiriirka uu la sameeyo dadkii waariga ajiray kubadda kolayga ah hadda macallimiinta sheegay Bashir Fox Baarajab Ahmuuse waa ciyaartoydii Soomaaliyeed ee waqtiga barsimaadka qiimaha kulaha kubadda kolayga in badan Soomaaliya door weyn ka keenay marka dadaalkooda hadda ay muujiyeen oo ay door weyn ku lahaayeen guusha ku lahaayeen way muuqanaydaa haddii dad noocaas camal oo badan la sii helo aan filaa in guulo fiican la sii gaari doono Baarajab waa macallin hadda tababare ka ah dalka Abu Dhabi Bashir Foxna wuxuu ka yahay Gadar buu ka yahay marka aqoontooda casriga hadda ay leeyihiin Fox iyo Baarajab ayaa waxay dadajisay in tartamadan ka qayb galnay dhanaa Soomaaliya saddexda ciyaar aan dheelay bilowga ilaa iyo dhamaadkii aan hoggaan ku hayno farsamada fiican ay wadeen macallin Bashir Fox iyo ninka leeyahay Baarajab leeyahay door weyn ku lahaayeen mar walba soo muhiim ma ahan dadka shaqada ku dhex jira in ay mar walba ay qabtaan tusaale ahaan Bashir Fox iyo Ahmed Muuse iyo Baarajab iyo dad badan oo baaskat macallimiin ayaa jiraan oo hadda ku dhex jira ma ahan 20 sano 30 sano kor ayaa macallin jira ma waa today maanta la joogo ku dhex jira soo muhiim u maahan guushan ay Soomaaliya ka keentay meeshan waa muhiim in la helo iskaashi la helo xiriirka kubadda kolayga iyo macallimiinta wala iskaashi u jira marka inta badan iskaashigan waxaan aabo ah Allah u naxariistay aad xajay barwiish gudoomiyaha kubadda xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga iyo gudoomiyaha Olombikada ayaa inta badan wuxuu ku dadaali jiray in iskaashi lala yeesho dad kasto aqoon iyo waaragnimo iyo karti oo la bidaaya hadda Brazil biye ka soo qaad markii sanadkan 2012 marka la keenay in loo keenay schedule-ka ciyaaraha Afrikaan ka qayb galeen markiiba xiriirka markuu sameeyo guddiga waa inta fadhiistaan waxay go'aan gaaraan yaan la kaashan karnaa
macallimiinta jooga qadar waa u dirnay kuwa maraykanka jooga waa loo diraa si wixii feedback in loo keena yiraahdaan inaan cayaarahan sanadkan u diyaar garow karno iyo intaan ku diyaar garow karno hadda in guushaan la keeno waxaa door weyn ka lahaa gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga Ibrahim Rombe oo aad iyo aad ku dadaalay iyo xogeyaha xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga Saciid Faarax Ducaale oo ku dadaalay in uu noqdo nin aan had iyo goor aan harsan si macallimiinta hawshan ku jiro iyo xiriirka uu iswaafajiyo si shaqada aysan waxyaabo badan qalada dhici jiray aysan u dhicin macallimiintana kaalintooda way ka soo baxeen xiriirkeena way ka soo baxeen kaalintooda ummadda Soomaaliyeed oo taageerayaasha ay jooga dalka Tanzania taageeradooda waa ka soo baxeen aad ay uga soo baxeen taageeradooda bal waxay ka sheeg ciyaaryahankan Faisal Aadan oo record ka jabiyay Afrika Faisal Aadan waa ciyaartoy Soomaaliyeed oo aad u dheer oo talent ah score aan la arag oo Afrika Soomaaliya 61 points ayuu ciyaaraha hadda mar ciyaar u dhaliyeen Faisal waxaan la filayaa in la mida waa laga helaa hadii hadda qaaradaha Soomaaliya ay ku nooshahay si waa ciyaartoy talent ah kubadda difaacay weerarka ku jiro reboonka ilaalinayo shooter ah dhinac walba looga baahdo kubadda kolayga Faisal Aadan waa heerkii loo baahnaa uu taagan yahay waxaan leeyahay hambalyan oo leeyahay guusha badan ee sanadkan ninka aabaha u ahaa waa Faisal Aadan waay aad u mahadsan tahay Tigana waa maqlaysaa injineerka runtii marar badan ayaan TV-ga Universal waxaan ku sameynay dood ah in laga keeni karo qurbaha sababtoo ah wiilashan ka yimid Mareykanka iyo Canada waxaan filayaa jinsiyad Mareykan iyo Canada inay ama ay ku dhasheen ama ay ku koreen way heli kareen inay Mareykan iyo ciyaaraan iyo college-ka ka ciyaaraan meel walba laakiin waxay doorteen wadankooda Soomaaliya inay ciyaaraan marka haddii sidoo sheegay xiriirkiina shaqadiisu ka soo baxo macallimiinta shaqada ay ka soo baxaan soo lama heli karo qaran laga keenay kaliya dibadda qurbaha oo matali kara calanka Soomaaliya waa mahadsan tahay waa muhiim in aad iftiimiso sida injineerku uu sheegay marka hore mar labaad waxaan hambaliyo u diraynaa macallimiintii iyo dhalinyaradii xulka qaranka macnaha wanaagga ay sameeyeen iyo dadkii la shaqeeyay waa wax meesha ku jira in la helo dad matala qaranka Soomaaliya ama kubadda cagta ha noqoto ama orodda ha noqoto ama basket ha noqoto dadkan qurbaha ku barbaaray aqoontii le heli kara fasilaadkii kale iyo waxyaabihii muhiimka ah heli kara inay matalaan qaranka waa wax muhiima waxa kale iyadana loo baahan yahay in la dhiirigeliyo kuwa wadanka jooga laftarkooda ama ha noqoto caasimadda ama ha noqoto gobolada la helo dad taya leh oo tababar la siin karo oo la mid noqon kara kuwaas laakiin maanta fursadda aynu helay waxaa suurtageliyay dhalinyaradaas ka tanaasulay inay qaran kale u ciyaaraan inay wadamo kale matalaan oo gartay iyagoo yar oo da'yar oo aan 20kii badidoodu aanay dhaafinba inay wadankooda matalaan qarankooda matalaan taasi waxay ku tusaysaa dhiirigelin fiican iyo xiriiradii oo fahmay faa'iidada iyo isku xidhka dadka iyo sida wax loo raadin karo maanta gartay taas ayaan maaragtay xiriirka kubadda kolaygan aad baan ugu mahadcelinayaa Saciid Faarax Ducaale iyo injineerka iyo raggii kaleba maaragtay hawsha ay qabteen waa hawl loo baahan yahay lagu dayo kullay saan ku ognahay xiriirka wuxuu soo maray xilli aad u adayuu soo maray sanada ka hor TV-ga waa ka daawatay waxa socday dhagax tuur baa socday waxa socday qalalaasaa socday marka soo sheegay injineerka gudoomiye Rombe shaqo aad weyn ayuu qabtay marka sidoo uu yimid Dr. Saciid soo yimid Faarax Ducaale soo yimid runtii iska wuxuu qabso ku shaqeeyaa mar walba Masar uu joogay mar dhaweyd hada Tanzania soo degan wadanka Mareykanka marka ma isleedahay isbedel aan gadaal loo eegi doono ayaa ku yimid basketka Soomaaliya waa rajaynaynaa waana muuqataa sida dadku ay maanta u arkaan waxa u bilowday waji cusub waxa la yiraahdaa hadda Soomaaliya waxay ka guurtay ku meel gaarkii waxay u guurtay dawlad rasmi ah oo federaal ah marka waxa laga yaabaa xilligii basketku inuu ka gudbay xilligii isqa qabsiga iyo dhagax tuurka iyo wax iska sheega iyo uu gudbay xilligii wax qaban lahaa sportiga ballaarin lahaa basketka especially qurbaha wadankii waxaana rajaynayaa maaragtay maadaama gudoomiye ku-xigeenkii nala jooga labaad oo xogayihii dadkii hawsha waday oo xogta u hayay oo ka mid inay ballaariyaan tagaan gobolada wadanka dhexdiisa wadamada deriska dad badan oo dhalinyaro badan oo talent baa jira meel walba in la isku xidho oo la raadiyo oo la sameeyo environment caafimaad qaba oo lagu midaysan yahay wax walba taasaan rajaynaya aad baan ugu hambalyeynaya waa mahadsan tahay injineer waxaan rabaa arrin muhiim ah ku weydiiyo waxaan la iloobi karin gabdhihii qaranka ayaa gobol xaarkan saan weyn bilaabay
laba sano ka hor qadar markii ay tageen oo maaragtay guulaha la taaban kara ay keeneen laakiin bal adoo xogiyo adoo gudoomiye ku-xigeenka bal waxa iga sheeg sababta keentay gabdhaha in ay ka qayb gali waayeen sanadkan والله سعيد حرك سوالي كوبا كوريا horta xiriir fan dibadda ka soo gala maaha waxa lagu shaqeeyaa waa iska wax qabso ama rakarooni ka shaqeeya ayaa lagu shaqeeyaa marka xiriirka sanad qorsheedka marka la dejinayo ayaa waxaan fiirinaa sanadkaanayto xagee xiriirka uu xoog saari karaa anagoo la tashanayno macallimiinta la tashanayno resembi xiriirka shaqaale kala leeyahay hoggaanka guddiga fulinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka hoggaanka guddiga fulinta xogeeyahana wixii guddiga fulinta ay gooyaan ayuu dhaqan geliyaa hadda guulaha iyo isbedelada hadda tagaana ka sheegeen waxaa kamid ah xogeeyaha xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga wuu yaqaanaa shaqada roolka uu ku leeyahay rool aan responsibility ku leeyahay xiriirka wuu yaqaanaa wixii go'aameen guddiga fulinta ayuu inuu dhaqan geliyay iyo dhaqan gelintiisa aad buu uga dadaalaa midaan gabdhahan ka qayb galay tartanka laftooda lama dafri karo waxaa jira gabdho Soomaaliyeed oo xulka qaranka ahaa jiray ay ugu horeeyay miski shugri dalbaas neero gabdho degan isu haween isu degan oo ciyaartooy hore oo kubadda kolayga ah oo sida hadda in loo shaqeeyay baaradiina loo shaqeeyay ayagana xiriirka loo shaqeeyay ayaga 2 sano ka hor bay gabdhaha diyaariyeen markay diyaariyeen xiriirkay noo soo sheegeen guddi macallimiina u tagay meesha tababar ku qaadanayeen waxa la soo gaaday gabdhaha inay yihiin gabdho diyaarsan national qaranka Brazil Soomaalida waxay aad garan qofka la geenay national in xil qaran oo misilo waxa waa in markii diyaarin fiican loo hayaa qofka barxad ka dheelaya ama qofka degmo ka dheelaya ama qofka Soomaaliya ka dheelaya ama qofka ciyaartooy ka dheelaya heer qaran isku mid maaha gabdhahaas markay soo diyaariyeen gabdhaha xulka qaranka macallimiin baa u tagay oo ku yahay macallin Shiini u tagaan iyo Tarambi iyo way soo qiimeeyeen waxay gabdhaha waqti yar oo dhiman intii loogu jiray iyo gabdhaha dadaal badan sameeyeen gabdhana Soomaaliya ka keenay marka dadaalka ay sameeyeen gabdhaha Soomaaliyeed xulka qaranka Soomaaliya ahaa jiray iyo iskaashiga ay la sameeyeen xiriirka ayaa waxa keentay guushaas keento midda kale waxaan ku darayaa hadii la helo iskaashi inta ka badan la sii helo dhamaan xiriirada Soomaaliyeed iyo guddiga Olympic Soomaaliyeed Soomaaliya jaalid badan oo qiimo leh oo sportiga qurbad degan waa sida oo muhiim ah horumarka in la gaaro iyo guulaha la gaaro hadii qof walba shaqada uu leeyahay ka soo baxo xiriirkana laga helo waji furnaan badan sida hadda aan sameeyno waji furnaan badan bulshada aan wakiil ka nahay ama ciyaartooy ama tifosi ama dad taageerayaal ahna ay kala roolkooda ka soo baxaan waxaan filayaa shaqadan shaqo ka bacaan in la heli karo ciyaaraha kubadda cagta ciyaaraha fudud ciyaaraha dawaasha iyo sidaan kale okay dagaalkii sokeeye waxa la idinku yaqaanay idinku ma aqoonin kubadda kolayga ama basket idinku ma aqoonin dagaal sokeeye la idinku yaqaanay sanadadii ugu dambeeyay dagaalka sokeeye ma istaagay mirihii ka soo baxay ma ku aragna Tanzania say wax u jiraan wallahi horta dagaal sokeeye oo saas ma jirin waxa la isku dhaafsanaa qof walba xiriirka roolka ku leeyahay role and responsibility-ga xiriir qofka shaqo leeyahay dastuur adeegsan lagu dhaqma gudoomiyaha waajibada leeyahay gudoomiyaha ku-xigeenka waajibada leeyahay xogeeyahana waajibada leeyahay marka waagaas xogaa isma dhaaf dadka aysan aad u fiirin constitution-ka jiray haddana waa laga baxay waa garada hadda insan u shaqeynayno dadkan keenay macallimiinta wanaagsan bulshada dadna taageertay meel nooc kasta dibadda gudaha waxaan filayaa in hadda wixii ka dambeeyay jirin mugdi jirin gadaal loo laaban maayo waa constitution lagu dhaqmaa jiray qofka uu ogyahay awoodiisa dastuurka la raaco waa mahadsan tahay waxaan ka hadalnay macallin Baarajab waxaa kaloo joogay Axmed Muuse oo Kenya Germany waxaa joogay Maxamed Xaaji ayaa joogay Bashir Fox ayaa joogay doctorka ayaa joogay Saciid ayaa joogay saan u sheegnay injineerkan uu sheegay iska wax u qabsa lagu shaqeeyaa meeshan marka maxaa looga baahan yahay sanadada soo socda jaaliyada Soomaaliyeed ee qurba joogta ay kamid tahay inay sameeyaan say gacan u siin lahayn horumarinta isboortiga qaasatan kubadda kolay horta nimankan odayada oo legendska ama magaca ku laha isboortiga hadda magacooday waxay fureen jid cusub weligoodna intooda badan qolyaha basketka way kaga horeeyeen dadka kale laakiin markaad eegto qurbaha waxaad moodaa inay ka qayb qaataan burburka iyo kala qaybinta sportiga majority-gooda intooda badan haddii aan nahay dadka qurbaha ku nool sax waxaan caadeysanay hawlahaasaan caadeysanay qofku wuxuu wax noqon karaa inta badan waxa weey dadka qurbaha jooga wuxuu leeyahay waxbaan rabaa maantaana rabaa adduunka kama socoto qofka qurbaha jooga waxa looga baahan yahay inuu wadankii tago inuu sacrifice badan sameeyo inuu qalab geeyo inuu tababar geeyo inuu aqoontiisa voluntary u gudbiyo
in uu ku wareego gobolada degmooyinka inuu ku wareego. marka dadka qurbaha jooga maanta waxaa iskaga qasan waajibaadkii saarnaa oo ay la rabay inay u qabtaan dhulkii iyo wax iyaga ka dhaxeeya. marka dadka qurbaha jooga waxaa la gudboon inay dhulkii tagaan, wax noqdaan, wax u qabtaan bulshadii, voluntary ku shaqeeyaan. laakiin nin shaqeeyay oo 20 sano halgan ku jiray ama maaragtay isagu iskii isu xilqaamay inaad maanta aad la xisaabtanto oo tiraahdo maaragtay waxaan kuma wanaagsaneed waxaan anaa ku wanaagsan adoon waxba qaban waa laga fiican yahay. marka waxaan kula talin lahaa qurba joogta in la iska iloobo isqa qabsiga iyo xinka iyo maaragtay waxyaabaha aan habboonayn, loona guntado in bulshadii la hormariyo, goboladii la hormariyo, dadka la isu keeno, laga saaro madmadowga iyo mugdiga waxa ku jira laga dhex saaro si loo midoobo. taasaa muhiima. haddaan taa la helinna waxay noqonaysaa wax soconaya male, dhagax tuurkaa soconaya. aad u mahadsan tahay. horta waxaan ku mahadcelinayaa barnaamijkii adi iyo Mr. Tigana ka qayb gasheen. runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u xiiso badan oo looga hadlay qaabkii loo doortay. marka waxaan aragnay shaqadii loo doortay guddiga Olombikada way bilaabatay. hadda waxaan aragnay xoghayaha Olombikada Mr. Duran Farax oo kula kulmay caasimadda magaalada wadanka Kuwait ee Kuwait. wuxuu kula kulmay amiirka Kuwait Sheikh Ahmed Al Sabah oo ah gudoomiyaha Olombikada Kuwait iyo Olympic Solidarity. waa maxay shaqooyinka iminka laga sugayo? tabcan afhayeen uma yid adiga Olombikada Soomaaliya, laakiin next best thing ayaa tahay. waxa qofku ugu dhawaan la hadli karnaa tahay. marka waxa laga doonayo Olombikada maxay yihiin? ilaan idinkana waxaa soo socda doorashadiina soo socotay. okay guddiga Olombikada Soomaaliya qorshe degsan yarli banaan degsan. waxaan leeyahay yarli banaankii ha ku dhaqmaan. okay sportska yuusan xamar ku koobnaan, Muqdisho kaliya ku koobnaan, in hadda dhulka nabadda Soomaaliya meel kasta in la geeyo waayo. Soomaaliya inta badan sportska ciyaaraha gobolada aad looga faa'iideysan jiray. haddana waqti nabad baa lagu jiraa. guddiga Olombikada waxaan kula talinayaa inay hadda il gaara ku fiiriyaan dadka Soomaalida gobolada degan, qalab u geeyaan, macallimiin u geeyaan, tartamihii ciyaaraha gobolada dib loo soo abaabulo si loo helo dad ciyaartooy jiil badan Soomaaliyeed oo sportiya oo hadda waxa jira gobolada ku dulman. haddii la dhiirigeliyo, tababar la siiyo, macallin loo geeyo, qalab loo geeyo, waxaan filayaa next 2 years in la heli doono ciyaartooy Soomaaliyeed oo markaan tagnay Brazil nooc kasta nooga qayb gala ciyaaraha fudud, lagdanka, kubadda kolayga, dabaasha in la heli doono. taasna waxa laga sugayaa guddiga Olombikada Soomaaliyeed inay qabtaan. okay Tigaan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan. waa laga hadlay in Soomaaliya alaab la geeyo, wax la sameeyo, laakiin dad aad u fara badan oo kamid yahay ciyaaryahankii Jeenyo Cabdiqani Jeenyo ayaa wuxuu geeyay qalab aad u fara badan. wuxuu geeyay bahda kubadda kolayga ee magaalada Muqdisho, kadibna wuxuu tegay magaalada Gaalkacyo isagoo la kulmay maaragtay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Galmudug, isagoo kula kulmay magaalada Gaalkacyo kula kulmay. waa nin reer London oo asxaabta kamid ah oo nin sporti ah kula kulmay. kadibna waxay kulmeen dad aad u fara badan ay kulmeen. waxaa kaloo sii maqan Fuad Cusman oo taqaanid Woodward Park oo reer Manchester ah, isagana ku sii socda Gaalkacyo. waxaa jooga Cabdiqani Carabi ayaa jooga oo si fiican u taqaanaan oo shaqooyin badan qabtaan. dadkaas maxaa mar walba loo arki waaya in TV-ga loo arki waaya? والله dadkan qurbaha jooga sida dadkaas oo kale laga rabay inay sameeyaan waa dad kaalintoodii gabay. waa dad iska caadaystay waxyaabahan Soomaalidu dhaqanka u yeelatay oo iska maaragtay farfar ku taaga iyo hebel iyo urur iyo waxaas. waa dad iska caadaystay. laakiin dhalinyarada xagga aaday oo sida Fuad iyo Cabdiqani iyo waa dad u soo jeestay inay wax qabtaan. waxa ka go'an waxa ay halka ku sameynayaan in xagga ka sameyn karaan ay aaminsan yihiin. waxay aaminsan yihiin inay bulshada dhexdeeda ka abuuri karaan maaragtay jawi fiican. dhinaca maaragtay Cabdiqani Carabi iyo hadda meeshan garaysay waa nin u taagan mar walba inuu bulshada isu keeno. hadda wuxuu sameynayaa isaga iyo gudoomiyaha sportiga gobolka Mudug dhinaca Puntland wuxuu sameynayaa Gaalkacyo. waxay sameeyeen dhalinyaradii koonfurta iyo waqooyiga ay isu keeneen. waxay sameeyeen urur oo ay iyagu mas'uul ka yihiin oo ah in dadku is dhex galaan. dhalinyarada waqooyiga koonfurta la isu geeyo. Cabdiqani saas muddo badan buu ku dhex jiray. muxuu ahay Cabdi Hodan isagana waa sidaas oo kale. marka dadku markii ay dadka wadankii joogaan markay helaan dad wax taraya oo wax u keenaya oo kaalmeynaya way dhiiranayaan, waxbay qabanayaan oo waxbay ku tashanayaan. laakiin haddii dadkii halka joogay ay ka seexdaan oo ku taageeri waayaan kuna doodaan inay ku metelaan waxay ka mid tahay ayaan darooyinka jira. tangeedi uu sheegayo oo
waa arrin aada u fiican oo loo baahan yahay in la hirgeliyo ayna ahayd inay mar hore dhacdo in maaragtay xiriirada iyo olombikadu ay eegaan gobolada nabadda ah. Puntland oo kale waa lagu soo dhaweynayaa, waxaa ka jira wasiir sporti baa jira, wasaaradda sporti baa jirta, bal inay tagaan oo iyagaa dadka wakiilka ah, Soomaali weeye, dadkan waa dadkii matalayeen, inay u tagaan ka dhaadhiciyaan waxyaabahan isfahmi waaga oo dadka aan maaragtay aqoonta badan lahayn ay ka shaqaynayaan, la furo jid cusub, tababarayaal, muxuu ahay macallimiinta, wixii laga caawin karo dadka laga caawiyo, laga soo xulo haddii ay jiraan dad orodada ah, kubadda cagta ah, wixii maaragtay in hawlahaas hawlo muhiim ah oo loo baahan yahay Olympic inay ay wax ka qabtaan. Okay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashan muhiimka ah ee barnaamijyo badan ayaa looga hadlay, TV-yada ayaa ku aragtay, website-yada, idaacadaha ayaa looga hadlay. Waxay isticmaaleen erey classic ah oo Soomaali laga isticmaalo, looma dhameyn ayaa la yiri qaabkii loo doortay Olympic-da waxyaalahaas. Qofka Soomaaliga ee ku nool Boosaaso ama Gaalkacyo ama Baydhabo ama ku nool Kismaayo ama Baraawe, haddii uu arko in Muqdisho kale laga yimid xoogaas oo isma oran karo looma dhameyn qaabka loo doortay Olympic-da Soomaaliya. waa run, dadku inagu Soomaalidu waa iska dhaqankeenu wuxuu ku salaysan yahay hab goboleedyo, laakiin muhiimadda waxa weeye in la eego qofku last 20 years ama 15 sano ugu dambeysay dad baa waxaan waday. Waxaa laga yaabaa in reer walba wax ku leeyahay haddii reer la eego, nin walba reerka ugu jira hadduu wax tabanayo kaasuu kala xisaabtami karaa oo dhihi karaa wixii waxbaa loo baahan yahay. taas macna ma sameynayso. Dadkan haddii la doortay waa la doortay, si kastaba ha lagu doorto, cabasho kasta ha jirto, waxbay soo qabteen, muddo hawl soo wadeen, wax wanaagsan bay hadda qabteen. waxaa muhiim ah horta in la taageero. tan labaad waxa weeye in lala shaqeeyo oo la yiraahdo lala xisaabtamo oo la yiraahdo niman yahow waa istoorateen oo waa laydin doortay oo guddi baa tihiin oo Olympic baa tihiin Soomaaliya, waxaa laydinka rabaa wixii laydin doortay inaad qabataan. haddii dad ku tuhmayeen marka inay group gaar yihiin, markaas waxay ka leexanayaan wadadii lagu tuhmayay, waxay noqonayaan dad Soomaali oo shaqeeya. iyagana waxaa looga baahan yahay inay kasbadaan dadka, saan hadda ka sheegaynay, inay gobol walba tagaan, maaha Puntland kaliya, Baydhabo tagaan, Kismaayo tagaan, gobolada dhexe tagaan, Hiiraan tagaan, isku xidhan dadka. laakiin arrinkan looma dhamada, waa laga gudbay hadda. qofku waa inuu wax noqdaa marka hore. anigu waxaan wax noqon karaa oo dad la xisaabtami karaa markaan waxahay anigu. haddaan anigii waxba ahayn waxa qabsan, haddaanan dhulkaygii wax ka qaban, gobolkan ka ima anigu, haddaanan kubadgeyn, haddaanan xiriir ka samayn, haddaanan kooxa ka samayn, waxa waaye dee maanta cid wax kuu qabanaysa ma jirto. wixii Soomaali waa la wada leeyahay, waa ognahay wixii wax waa naga wada dhaxeeya, waa naga wada dhaxeeya. aad ma santahay kulley dhinacii Olympic-da doorashadii waa dhamaatay, laakiin xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga doorasho ay ku socota dastuurkiina iyo qaabka la isu doorto iyo xilliga ay is dooran doontaan ama wax dooran doontaan bal noo sheeg. wallahi horta doorashada xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga waa doorasho dastuuri ah, waqtiga la qabtaa. hadda markii guddiga ay madaxda gudaha ku laabtaan, waxaa la qiimeynayaa baahida degdegsiga hadda jirto oo xiriirka u taal. dibadna waxaa la iclaaminayaa waqtiga doorashada dhacayso. abriil baan ayaa waqtiga oo doorashada insha Allah sanadkan abriil buu ku eegyahay. guddiga fulinta fadhiisanaya xiriirka iyadoo talooyin badan qaadanayo, kadib ay guddiga ku dhawaaqayo waqtiga doorashada tahay. hoggaanka guddiga fulinta ku dhawaaqayo waqtiga doorashada la qabanayo, si dastuurina u dhacaysa. mar walba dastuurka la raacaya, si dastuurka u raacaysa. dastuurka ayaa waxa lagu shaqeeyo dastuurka, dastuur laan adduunka maba lagu shaqeeyo. anaga dastuur baan ku shaqeynaa, dastuurkaas baan raacaynaa insha Allah hadii la yiraahdo. aad ma santahay. daawadayaal, sida aad ku daawateen faaqidaada ciyaaraha, macalinka Soomaaliyeed ee ahaa goolhayihii Jubbada Hoose Cabdixaaq, iminkana ah tababaraha kooxda Jaguar ee ka dhisan wadanka Australia, ayaa nambarka labaad ka galay horyaalka wadankaasi, khaasatan galbeedka wadanka Australia. iminka waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira isagoo ku sugan magaalada Perth oo ku taala galbeedka wadanka Australia, ciyaaryahankii Jubbada Hoose iyo macalinka Jaguar. marka ugu horeysa Cabdixaaq, ku soo dhawo faaqidaada ciyaaraha. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cabdinaasir, oo ku salaamaya adiga iyo bahda Universal, waana ku soo dhawaanayaa inta isboortiga jecel oo dhageysanayso TV-giina caalamiga ah. waxaan idinku salaamayaa salaantii islaamka. assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام cabdixaaq, runtii aadan ugu faraxsanahay. marar badan ayaan isku dayn aan kula soo xiriirno. Australia iyo Ingiriiska aad ay u kala fog yihiin, laakiin waxa noo dhaxeeya waa Soomaalinimada. bal iga waran xilliga aad u noqotay kooxdan weyn ee Jaguar macalinka.
cabdinaasir sidaa la socoto markii horeba annaga bah sporti aan iska ahayn oo macalinimada waxaan ku bilaabay markaan Australia imid koox Soomaaliyan waday 2009kii oo aan kaalinta afraad keenay ciyaaraha oo lagu qabto jaalidaha caalamka Western Australia beert lagu qabto anoo jooga 4 bilood ayaan kooxdii Soomaalida qabtay halkaas ayaan waxaan ka bilaabay shaqo labaad oo ah in aan macallin u noqdo koox Soomaali ah oo meesha ka dhisan iyo Oromo ah oo 2 sano isku xigto 2010kii ilaa 2011kii 2 jeer horyaalkii ka qaaday waqooyiga Australia oo kaalinta koowaad galeen markaas kadib ayaan waxaan u leexday inaan coach gareeyo koox kale oo ayadana State League ka ciyaarto oo la yiraahdo Fremantle Spirit taasi oo aan waday muddo 6 bilood ah kadibna waxaan u wareegay kooxda tan Jakwa oo ay ka kooban tahay koox Afrikaan ah oo ay leeyihiin dadka Afrika ka soo haajiray intooda badan oo ku nool waqooyiga Australia waa gartay cabdixaaq aad ayaad u mahadsan tahay ciyaaryahannadan ma ku jiraan kuwa Soomaali ah hadday ku jiraan se rag qaranka matali kara oo ka ciyaari kara qaranka Soomaaliya ma laga heli karaa sida runta ah horta ciyaartooy fara badan oo Soomaaliya joogto oo kuwa aan haya ka wanaagsan jiraan oo ku nool magaalada Melbourne iyo Sydney oo Soomaali ah oo matali kara qaranka Soomaaliyeed halka magaalada aan joogo ilaa 4 ilaa 5 ciyaartooy aad u wanaagsan jirta oo ayagana matali karaan qaranka Soomaaliya iyo kana ciyaar kara ciyaaraha waaweyn laakiin sida aad la socoto waxay u baahan yihiin diyaarin fara badan oo ah sida ay ku noqon lahaayeen ciyaartooy professional ah waayo wax maanta qaran matali kara waa inuu noqdaa qof at least maalintii 3 jeer ama 2 jeer training suubiya oo kalaabo waaweyn u dheela laakiin laacib oo weekii 4 saacadood suubiyo training iyo maalin game qaran ma matali kara sida ay tahay shuruucda u degan احترافنimada ama professionka waa gartay cabdixaaq saan la socono Soomaali aad u fara badan ayaa ku nool wadanka Australia qaasatan magaalada aad degan tahay Perth kullay sportigana Soomaali meel walba ay joogaan aad u jecel yihiin waxa TV-ga Universal mar walba ka daawataan barnaamijka ciyaaraha wada hadalka dooda marka qaabka sportiga Soomaali loo maamulo iyo sida hadda la isku haysto iyo qaabkii waqtiga gobolada ka ciyaar jirtay maxaa ka dhigi lahayd والله عبد الله سيدا الله سعوته سبورتي وحوليه أبي هوية waxa uu ah wax la dhaho sharci baa waa abi hooyo sida aan la socto dawlad shaqo ma kule siyaasad shaqo ma kule waa sharci la dhisay 1917 la dhisay ayaa lagu socdaa marka qofkii sharcigaas wax ka duwan keensado hadde cid walba qabanayso cid ogolaanayso male laakiin isqabqabsi uu imaanayo dadka aan wax garanaynin oo aqoon aan u lahayn shuruucda iyo wixii waa iska imaanaysa inay ka hadlaan meel ay garanaynin iyo waxay ahayn laakiin anigu waxaan qabaa wixii hadii loo wada noqdo shuruucdiisa cid qabsanaysa cid ka hor imaan karto midna male iska qabsina aduu jiro hadda anaga waxaan u arkaa meel wax ka jiraan kullay waxa imaanaya wax la yiraahdo muran meesha la ka dansan tahay muran ma imaanayo waxna ma imaanayaan waa gartay cabdixaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa ka xasuustaa gobolka Jubbada Hoose iyo asxaabtii ay isla ciyaar jirteen waagi aad kale idinkaga baqi jiray Soomaaliya sida la socoto Cabdinaasir gobolka Jubbada Hoose gobol kubadda cagta aad ugu wanaagsan waaye gobolada Soomaaliya uu ka duwan yahay waayo gobolka Jubbada Hoose waxa la dhigay ilaa iyo 87 16 koob nus ay qaateen inta gobolada kale oo Soomaaliya oo dhan nuski kale ay qaateen for example aday qaadatay Banaadir 3 qaadatay hal Jowhar qaadatay hal Hargeysa ugu kalbeed qaadatay 3na ay qaadatay Marko Kismaayona kaligeed ay 8 koob qaadatay marka Kismaayo sidii loo dadka ay u yaqaaneen ciyaaraha jeclaa waxay ahayd hooyadii kubadda cagta ee Soomaaliya marka wax la hilmaami karo iyo wax la tirtiri karo midna male laakiin burburkan markuu yimid waxa iska soo baxayo waxyaabo fara badan oo bedelayo xilliyadii iyo wixii laakiin taariikhda sida
runta ah way qoran tahay gobolka jubbada hoosena waa la yaqaanaa dadka waaweynna way garanayaan dadka hadda yaryarna way baran doonaan insha allah. هذا وما سنتي ودنبينتي أضوء كفائدة جانس كان وين محد وش يقول له هيد مامور سبورتيكا الصومالية يو بعض سبورتيكا يكونوا القربها والضمادة الصومالية ويدقيهين عاوك الدعوانية. إن هرتا عبد الناصر هذا يوم هسنتين ذكي بهذه يونيفرسيتي وحنجعلها هنا هلك آدي أدان وقومها اللي بعض سبورتيكا الصومالية ولي dadkii waaweynaa ay hore u soo ciyaaray ama macallimiin ha noqdaan ama ciyaartooy ha noqdaan heer qaran iyo heer gobol iyo heer seer aaba waxaan kaloo aan halka aan rabaa inaan hambalyo iyo aaga diro xiriirka kubadda cagta iyo goosba labadooda shaqada culus ay ku jiraan iyo marxalaha adag ay ku nool yihiin iyo sida ay u shaqeynayaan waxaan kaloo rabaa inaan halka aan mahad ballaaran u jeediyo ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga guushii wanaagsaneed ay ka gaareen ciyaarihii lagu qabtay Afrika hadda iyo sidoo kale gabdhaha basketka ciyaarayo iyo dhammaan waxay dhageysanayoo dhan aad ayaad u mahadsantahay waxaan filayaa Cabdixaaq dhamaantooda inay ku daawanayaan isla markaana ay ku maqlayaan insha Allah waxa saan ku wada hadalnay waxaan ugu balan ah inaan kugu nimaadno Australia magaalada Perth asxaabta reer Australia dhalinyarada kubadda kolayga ee timaadada suuqi ciyaaraha ka dhacay Sweden dhamaantiina reer Australia footballka basketka kulligiin waa salaamantiin Cabdixaaq aad ay u mahadsantahay aad iyo aad ay u mahadsantiin idinkana sidoo kale daawadayaal kaasi wuxuu ahaa ciyaaryahankii weynaa ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana ah macalinka kooxda Jaguar ee ka dhisan magaalada Perth oo ku taala galbeedka wadanka Australia oo aan kula hadlayay telefoonka isagoo ku sugan magaaladaas mahadsanid waxa lagu qabtay magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark sanad guuradii 13aad ee kooxda Wadani Club kaasoo ka dhisnayd 13 sano magaalada Copenhagen oo ay leeyihiin jaaliyada Soomaaliyeed ee caasimadda wadanka Denmark xafladan oo ay soo agaasimeen kooxda kubadda cagta Wadani waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan caasimadda wadanka Denmark waxa sidoo kale ka soo qayb galay ciyaartooydii hore ee Soomaaliya iyo kuwa cusub ee soo maray teamkan Wadani ee ka dhisan Denmark isla xafladaasi waxa joogay wakiilka gudoomiyaha Olimbikada Soomaaliyeed ee Denmark Mr Maxamed Shukri isagoo ka hadlay isdhexgalka wanaaga iyo isla markaa hambalyo u diray doorashada cusub ee loo doortay guddiga Olimbikada qaranka Soomaaliyeed ee ka dhacday wadanka Soomaaliya engineer waa maqlaysay legend Cabdixaaq runtii arrimo aad muhiim ah ayuu ka hadlay oo sida sharciyada qofka duuba yaqaan maba loo baahnaa in isku qabso laga wada hadlo waxaan rabaa ugu dambaysi qaabkii ah ku tagteen nooma aadan sheegin Tanzania saa ku tagteen iyo waqtiga tagteen nooma sheegin iyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa waani war celin ah soo jeedin doonta adoo chance-kan mar labaad ka faa'iideeya Cabdinaasir waa masantahay horta diyaar garowga la diyaarinayo xulka qaranka waqti dheer buu soo qaatay marxalado soo maray waxaan aan la hilmaami karin doorkay ku leedahay dawladdu ku leedahay in xulka qaranka la diyaariyo waxaan kaloo inta aan ka muujinaya guddiga Olimbika Soomaaliyeed guddoomiyada Cabdullaahi Tarambi xokayaha Duraan waa dadkii aad iyo aad xag abaabul iyo xag talo aan laga maarmin marka la diyaarinayo xulka qaranka Soomaaliyeed waxaan kaloo aad isla hilmaami karin gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Tarsan oo heel iyo hooba laga helay waxaan kaloo ayadana fiicnay in la xuso jaarida Soomaaliya ee degan Kuwait iyo jaaliyada Soomaaliya ee degan Qatar iyo Abu Dhabi waxaa kaloo ayadana la hilmaami karin jaarida Soomaaliya sharafta leh ee degan dalka UK doorkay ka qaateen xag dhaqaale iyo xag abaabul xag talaba iyo jaarida Soomaaliya ee degan dalka Mareykanka iyo Canada taas waxay muujinaysaa dad badan oo iskaashaday Tanzania marka gudaha la tagay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda degan xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga waa muhiim bay noo tahay inaan iskaashano oo wixii tala dhaqaale tala abaabul tala diyaar garow ciyaartooy gacmo furan aan ku soo dhaweynaa waana xiriirkan waa xiriir open xiriir furan tala waa qaadanaynaa tusaale waa qaadanaynaa in wax loo sheego oo la dhaliilo qaab sharcina waa ogolnahay hada uma santahay tigana waa u jeedaa kulley waxa la galay saa hor u tiri xilligii dhagax tuurka waa dhamaaday kumeel gaarkii dawladdu waa ka baxday sportkii kumeel gaarka waa ka baxay
wiilashii Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay gabdhaha way iman doonaan ciyaaro fudud ayaa iman doona isbedel ayaa dhacay maxaa waana warcelin aku dir lahayd injineerku wallahi waa mahadsan tahay anigu waxaan rabaa inaan u kala qaybiyo taladayda dadka qurba joogta ah xiriirada iyo gobolada sida dowlad goboleedka Puntland oo kale iyo maaragtay meelaha nabadda ah dadka qurbaha jooga waxaan kula talin lahaa in laga gudbo meeshii aynu joognay la midoobo dhulkii loo noqdo wax la qabto dhalinyarada dhulkii joogta wax la taro ninkii qalab geyn kara ninkii dhar geyn kara ninkii wax geyn kara ninkii talo geyn kara ninkii aqoon geyn kara in dhulkii loo noqdo waxna loo qabto dadkii xiriirada ka jira wadankii iyo guddiga guud ee Soomaaliyeed guddiga Olympic Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxaad matalaysaan Soomaali waxaad tihiin Soomaali baa idin dooratay waqti badan oo adag baad soo marteen waqtiyo badan oo adagna waa dhiman yihiin waxaa la idinka rabaa in aad midaysaan dadka tagtaan dhulka nabadu ka jirto meesha aad joogtaan wax ka qabataan qurba joogta iyo dadka gudaha isku xidhaan waxaan kaloo aan kula talin lahaa inay joojiyaan dadka inta badan isticmaala magacooda oo u adeegsada sida qaldan jagooyin badan maaragtay oo la iska magacaabo oo aan tayo lahayn inay ilaaliyaan waa iga talo ma aha inaan shaqsi ku jeedo ama group ku jeedo si wixii tayo u yeesho waa kana engineerka baa nala jooga maanta xiriirkoodii wuxuu marayaa meel wanaagsan open buu u yahay Soomaaliya oo dhan inta ay sameeyaan guddiga Olympico gobolada nabadda ah iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed Puntland waxaan dhihi lahaa waxaa la idinka baahan yahay in aad soo bandhigtaan qorshayaal muhiim ah oo adduunkana lagu xisaabtami karo guddiga Olombikada iyo cidii wax laga tabanayna lagu xisaabtami karo oo qeexan tababar hadaa u baahan tihiin hadaa u baahan tihiin kaalmo kale u soo bandhiga la xisaabtama dadka laakiin hal isku calool fiyobaado yaan dadku noqon dad maaragtay wax ka dhaxayaan oo ku loolamaya sidaas aynu mid ku noqon karnaa midnimadeennuna saan ay ku hagaagi kartaa idinka aad baan idinku mahad celinayaa waxaa laga yaabaa in dad badan idin eedeeyaan oo ay u arkaan habka wax wadan si u salugsan yihiin marka laba qaybood baan iyagana u kala qaadaya oo tala ah qofka idin eedeynaya inta badan waxaa laga yaabaa in waxa markaa laga hadlayo ama barnaamijka aad markaa wadaan aanu jeclaysan oo ay ama isaga saamayso ama nin saaxiibkiisa oo wax qaldan wax ka hawlo ku jiray wax laga taabtay oo ay taas dhibto qofkaas waxaan ku leeyahay waxaan waa wax Soomaaliyeed talo waa loo baahan yahay individual buu idinku iman karaa laakiin meelaha public oo la iska eedeeyo iyo waa laga qurux badan yahay in la iswaani way fiican tahay idinku wax badan baad sameyseen Soomaalida bahdi sportiga waad isbarteen dad badan oo aan la aqoon oo aan laga warhayn baa dadka tusteen waxaad kaloo sameyseen dad kala lumay inay ishelaan oo ay iska helaan shaashadan yar iyo fadhigan yar marka aad baad u mahadsantihiin waxaan la idinka rabaa inaad isku xidhaan bulshada oo aad midaysaan aad iyo aad u mahadsan tahay engineer hay horta waxaan sinaba marna meesha la ilmaami karin barnaamijka faqaada ciyaaraha universal waxaa si gaar ah aan ugu mahadnaqayaa madaxa faqaada ciyaaraha ee universal Cabdiqaadir Biriq iyo adigaba inaad door fiican oo hagid iyo toosin iyo tala inaad door weyn ka qaadateen sideedaba xiriirka anaka qorshahan ku jirno qorshahayna xiriirka yardeed ee darsana waxa kamid ah marka laga soo tago tartamada hadda sanadkan 2013 ciyaaraha laga qayb galaa gabdhii wiilba laga qayb galaa markay soo dhawaadaan anaga saxaafadda anaga u sheegayno waxa kale oo jiro qorshe ah in la tago gobolada tago training la siiyo gobolada waxa kale oo jira qorshe refreshment la siinayo macallimiinta kubadda kolayga Soomaaliyeed waxa jira kulamo aan rabnaa inaan leeyahay jaaliyadaha dibadda hadda UK mar dhow waxaan shirba abaabuleynaa oo wada tashi ah baada Soomaaliya kubadda kolayga rabnaa inaan tashano wixii ka soo baxay Tanzania feedback qiimeyn aan ku sameeyno Mareykanka Canada waa laga wadayaa Australia waa laga wadayaa anaga waa xiriirkeena waa xiriirka Soomaaliyeed ee ka shaqeeyay in ciyaartooy Australia laga keeno ilaa America dadka isku xiraa waa kada shaqo aad weyn baa la qabtay waxaana sinaba meesha la ilmaami karin dhammaan xiriirku way shaqeeyaan haba loo si kala furaaday gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed iyo xogeeyaha ayaa door weyn ka qaatay in ciyaartooy Soomaaliyeed oo degan Mareykanka Canada iyo Australia inta u dhaxayso iyo Yurub la maraba in laga shaqeeyo gaar ahaan waxaan tala u jeedinayaa bahweynta sportska meel kasta ay joogaan
in la midoobo waxa marka la midoobo hadda sidaan u midoobno camal haddii la midoobo oo kubadda cagta loo midoobo bahda kubadda cagtana degan meel kasta raacna intay is arursadaan xiriirka tala u geeyaan iyo qorshahoodana ay ku darsadaan inay xiriirka la doodaan wax la soxo wax la aqoon la soo kordhiyo annagana waa nagu balan inaan shirar qabanno Afrika iyo Yurub inaan shirar ku qabanno oo wajina markaa jaaliyad sharaf leh oo Soomaaliyeed aad dibadda degan oo door weyn ku leh horumarinta kubadda daarabna inaan horumarino inaan talo fiican aan siinaa iyo talooyin joogto ah inaan siinaa waxa la yiraahdo bulshada aad ayay mahadsan yihiin daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen injineer cabdulqaadir geedi oo ah gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga iyo Mr. Ahmed Abdallah Tigana oo bahda sportiga UK qaasatan magaalada London barnaamijkan waxa soo qoray Abdulqaadir Maxamed Faarax Birq madaxa Sporting University TV cameraman iyo editing waxa ka ah Rashka waxa kale oo soo saara ka ahaa Jibril Maxamed Jibril iyo Cabdiqani Maxamuud Baa anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil barnaamijka intaan ka bixin bal ila daawada sawiradan quruxda badan iyo heestan magaceeda la yiraahdo dhulkayagiyo